hoteelka Maana Guest House ee magaalada Boorama waxaa maanta lagu qabtay kulan ay iskugu yimaadeen haweenka goboladan Awdal iyo Salal ku dhaqan kuwaasoo kulankan ku taageeray hadalkii dhawaan ka soo yeedhay la taliyaha arrimaha haweenka ee madaxweynaha Soomaaliland Marwe Amaal Xaaji Axmed Miisaan ee ku saabsanaa in golaha wakiilada Soomaaliland ay meel mariyaan kootadii madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siinaayo uu ansixiyay in haweenka Soomaaliland ay ka helaan doorashooyinka madashan waxaa ka hadlay haween kala duwan oo kulankan ka soo qayb galay waxaana qaarkood hadaladooda kamid ahaa waxweyn maanta waxaan isugu nimidnay hadaan nahay xildhurtii ama haweenweynihii gobolka Awdal inaan ka soo jeedino baaq ku saabsan si aan uga midaysanahay maxay ahayd kootadii uu madaxweyne noogu talagalay uu nasiyo haweenka siiyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siinaayo uu ugu talagalay haweenka intuu ololaha ku jiray iyo inta maanta uu kursiga fadhiyaba uu ogolaaday taas ay haweenku yihiin xildhurtii dalka horumarkii dalka way hooyadu waxa weeyaan taa maanta baarlamaan haday tahay wasiir haday tahay madaxweynaha haday tahay waa tii hooyo ay dhashay ama aan la dhalanay ama aan u dhaxnay weeyaan maanta kameena filaynin baarlamaanku inuu ka aamuso ama iska dhageetiro warqadaha hor yaala ee madaxweynuhu ogolaaday uma ogolaan karno haween maanta kameena filaynin waxaan isnaayn kootaad sheegaysay in first baarlamaanku wixii halka u dhigaya laakiin maanta way diidan yihiin kamana ogolaanayno hadaan haweenka Soomaaliland oo dhan waan ka midaysanahay dawladda kulmiye waxay dawladda ballan qaaday inay fulin doonto arrimaha maxaydan haweenka oo kale dadka laga tirada badan yahay run ahaantii xukuumaddu way fulisay waxay hor yeelaan baarlamaankuna maanta aad ayuu uga dhigaadeeyaa inuu dumarka wixii loo filiyay oo ogolaado waxaan la hadlayaa baarlamaanka teed ku soo baxdeen kuma dhamaanaysa mar walba way joogtaa innaga ku noqon doona inamadiina gali doona kuwa ay dhalaan baa gali doona marka waxa weeye waxaad isku hortaagtaan haweenka waxa weeyaan waa qalad waraabuhu waxa la yiri dameeru waraabaha uu ka caaganaa iyaga ay dhigtayda dhadhamintiina uu ku talax tago wada dhameeyaa imka uu cunaa haweenku kolkay iyaku isku damqan waayeen ee cadkooda doonan waayeen ay rag uun had iyo jeer ku sakhraansan yihiin de waa gar in maanta la yiraahdo wuxuudi waanu reebnay tacliin baana lagu xidhayo waanu leenahay siyaasad baana lagu xidhayo waanu leenahay khibrad baana lagu xidhayo waanu leenahay wax maanta ka maqan haweenka Soomaaliland haba yaraatay ma jirto bal haddaba wixii lagu marmarsiyoon lahaa oo dhan wuu soo dhamaaday arrinka maasalaamadan hadalka wanaagsan iyo sida fiican madaxweyne Maxamed Axmed Maxamed Siinaayo uu noogu ogol yahay noogu ansixiyay inay dumarku koota ku yeeshaan maxaa u diiday baarlamaanka markii la hor keenay inay dib u xamaartaan waa mushkilad weyn maydaan nidalin dumarkiini maanaan ahayn maanaan walaalihiin ahayn dhibtu halkay ka taagan tahay aad iyo aad uga xumahay golaha wakiiladu in cod ee kuraasada ay ku fadhiyaan kuwii anagu aan geynay ay tahay buur iyo banaanba uga dhacnay ay tahay in ay maanta gacmaha naga laabtaan oo ay diidaan kootada yar ee aan qadarkeedu yar yahay in ay haweenka ka hor joogsan waa mid nasiib darro ah waxaan baarlamaanka halkan baaq uga diraynaa dhammaan oon leenahay waa in baarlamaanku sida ugu sharcisan ama sida ugu degdega badan u soo ansixiyo sababtoo ah sida hooyooyinku u sheegeen dumarku waa muhiim dhalinyarta haweenka yaryarku waa muhiim marka sababta ay dumarku u doonayaan in siyaasadda ay ka soo qayb galaan waxa weeye waa damqasho ay raggii ay soo saareen u damqan waayeen danihii dalkooda Cabdi Fataax Axmed Somali Channel magaalada Boorama